السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركل كسود بهذا يوتيوب channel كينا أسد دارو channel. waxaa inoo sii socon doona barnaamijkeenii ahaa waanada geeri ayaa inoogu filan marnaba walaal ma ku fikirtay maalinta aad dhimanaysid maalinta aadan lahayn xeelad aad ugu fakato geerida marka geeriduna kuu timaado qoomo kuma anfacaysee hadda ayaad haystaa waqti waxaad hor istaagi doontaa eebaha aanan wax ka qarsoomi karaa aanay jirin sida eeba quraankiisu ku yiri maalinta eebe laydin soo bandhigi doono maalinta wax eebe ka qarsoomaya aanay jirin sidoo kale wuxuu alle noo sheegay qof kasta inuu dhimanayo wuxuuna ku yiri quraanka kariimka ah naf waliba waxay dhadhaminaysaa geerida maalinta qiyaamana qof waliba wixii camal ah uu la yimid ayuuna siinayaa qofkii laga dheereeyo naarta jannadana la geliyo wuu liibaanay nolosha adduunyaduna waa nolol wax kadisa inaad had iyo goor xasuusnaato geerida kana fikirto wixii camal ah oo aad samaysay waxay ka mid tahay waxyaalaha eebe loogu dhawaado wax kasta oo adduunkan ku haysatana adduunka ayaad uga tagaysaa waxa ku raacaya camalkaaga haddii uu yahay mid xun waxaad la kulmaysaa wax xun haddii uu wanaagsan yahayna waxaad la kulmaysaa wax wanaagsan marka eebe loo tagana eebe wuxuu dhahayaa waxaad maanta noo timaadeen qof waliba isagoo keligii ah sidii aan markii hore idin abuurnay wixii adduunka aad ugu haysayna gadaal ayaad uga timaadeen waxaa walaalayaal waano iyo wicid inoogu filan geerida eebe sareeye wuxuu kitaabkiisa ku yiri qof kasta oo inaga naga mid ahi wuu dhimanayaa qof kasta oo inaga naga mid ahina waa kii dhadhamiya geerida balse nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku dardaarmay warbadiya sheegitaankiisa ama xasuustiisa midka macaanka iyo qaraarka gooya had iyo jeerna midka adduunyada dadka ka quusinaya oo qofkana maalkiisa dareensiinaya inuusan waxba u taraynin kaa xasuustiisa badiya waana mawdka nebiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu isagu nagula dardaarmayo iyo waxa aynu inagu ku dhaqmaynaa waa laba aad iyo aad u kala fog marka qofka haddii uu aakhiro xasuusto adduunyada way la yaraataa haddii aakhiro uu iloobana adduunyada way la weynaataa imika dhegayste adiga bal naftaada in yar imika naxashka ku rid kadibna eeg adoo ku jira kafantaadii kadibna eeg adigoo godkii lagu sii laalaadinaya kadibna eeg iyadoo cidii lagugu rogaayo kadibna eeg meeshii lagaaga soo tegay adigoo sii maqlay dadka kabqaadkoodii ugu dambeeyey godkoon lahayn iftiin ilaa ilaahay inuu u yeelo mooye oo ciriiri ah ilaa inuu ilaahay waasicyo mooye oo dabayl lahayn ilaa inuu ilaahay u yeelo mooye bal iminka dhagaystay intaa niyadda gasho agtii alle ayaa kuu timaaday oo soo fariisanayaan meesha ishu ay wax ka aragto iyagoo kaa raraya daartii dhammaanaysay oo kuu raraya daartii haraysay markaasuu malkulmoodku soo dhowaanayaa malagii la yiri nafta soo qaad ilaa uu madaxa kaa soo fariisto naftii buu u yeerayaa kolkaa marka nafta loo yeerayo laba midkood bay noqon kow naf markay adduunka joogtay xasuusnayd aakhiro iyo mawd ilaahay iyo rasuulkiisa adeecday oo xaaraantii iska ilaalisay dariiqii nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee raacday wuxuu ka leexiyeyna ka leexatay iyo mid labaad mid waxaas oo dhan diiday naftii wanaagsanayd haddii ay markaa tahay naftu ama ruuxdu ruux wanaagsan wuxuu malaku mawdku oran doonaa yaa ayuhatuha nafsu lmudma'inna irjicii ilaa rabbika raadiyatan mardiya fadkhulii fii cibaadii wadkhulii jannatii oo macnaheedu tahay soo bax nafyihii jirka wanaagsan ku jirta ee aan xaaraanta cuni jirin ee rasuulka amarkiisa raacday wuxuu ka reebayna ka haray ku bishaarayso janno iyo ilaahay raali ahaantiisa kadibna naftii way soo bixi doontaa sidii dhibic biyo ah oo ka soo dhacday weel la foorariyey sidii qodax suuf laga soo saaray oo kale waxaana sidaa u soo bixi nafta qofka muslimka ah iyo mu'miniinta kadib nafta jirka ku dhegi mayso ee way soo bixi